ما في عندي marka imtixaan ila ardayda way yara qof waliba haduu shaqo tagaayo haduu imtixaan galaayo wala yara abasho caadi waxa ka mid ah nolosha caadiga inta dooshin maalin walba imtixaan waagi bariyo imtixaan baa jira kii ilaahay uu ka doonayay kan nolosha ka doonayso waa iska imtixaanku caadi marka wax weyn la noqon saacadan laga bilaabo waan inoo fureynaa dhammaan imtixaanka uu inoo furay gobolada oo dhan waa ilaahay mahadi nabad buu ku dhacay maanta seeso ayr ku galay si ay sheegtay marwaad inaga oo ismaamulayna oo kaliya waa nasiib marka dhamaantii waxaan diirteenayaa inaan wada aflaxdaan imtixaanku diin bi yaraado farxadeeda galisaan garkiisan caadi cabsi malaha ardayda ka naxad ma idinku faraxsan gala kalsoon ku gala insha Allah waa guuleysanaysaan dhammaan ardayda waa ducaynaya dalkeena horumar iyo barwaaqo aan ducaynaya ilaahay idinkana insha Allah ani adduun malaha cimri ku gaarnay idinku madaxood saxdaan wadii bariino waqti ma foga hala yaabna wax weyn hamoodina iskuulkana ku galaysaa waxa la yiraahdaa farax Umar Sooma marka la sameeyaa garanaysaa ma sababtii loo sameeyaa garanaysaa bari aan aad fogeyn oo shalay u ahayd kuna 966 Soomaaliland waxa ka soo baxay intermediate iskuulada dhexe in ka yar 300 ma gaaran 200 ka tumar maahay dabeetana secondary waxa jiray amuud sheekh qura waxay qaadayeen ka badanay 6 laba galaas oo shalay konton bay qaadayeen intii kala iskuul weeday ardaydii waqtiga sanadka ka baxday iskuulka intermediate ka secondary oo socotay ayaa mudaharaad weyn qaabsay in loo dhiso secondary dalka dabeetana dawladii waqtiga joogtay dagaaladii baa arday ku qaaday halka stationka booliska hortiisa ayaan isku qabsanay odayaashii Maxamed Axmed Cali Xasan Meegaag inta ka garanayo jaamacadda booliska ahaa barasaabkii taasoo ugu furay وانا دابا قالنا واحد مid walba ilaa xafadka tuure waxa ku dhintay inuu jiray Maxamed Haybe Allah u xariisto waxa ku dhaawacmay in la yiraahdo Ahmed Yuris oo imka u shaqeeya iga garabkaas la baxdo marka sidii baa lagu furaa kan dagaalkii xabad keento waa loo bixiyay bari dama Farax Umar loo bixiyay maantana 23,000 أي تربية كبحرة طبعا هو وقت له لكن ظروفهم صامر هاي يعني بيعتبرون الناس يقدرون هذه صدق حسوا كل سنة قدام بين بينهم قاعد هوشة أنت أنا السومال أنا هاي أول هورا مركز كده كبحرنا وحتجي سين حمر سلا سنة كه يا سنة دي كل حاجة أرض ده حاجة كتكتة حمر تجيسه هذا كنت يجين ووراثة حد منشر ama gaari ka dhici jiray ama dhibaato kale beer jirtay marka waa ilaahay mad 3 talaabo weyn baa la qaaday dadkii markuu isku tashado wax qabsaday oo nasiib beetay waqtigaas la kulantay Britain madax halkan soo taagay Soomaaliya noqonaysa waxa baan dhaasaa u taagay insha Allah sideedii lixdan kii ma leeyahay iyo tawliix ka bajaahay Maxamed Xaaji Raaci gaar Prime Minister loogu yimid Amuud wali erga war xusta wuxuu nagu yiri Britain baa halkan soo taagi doonta laakiin dib ma nafkir غير معقول بهده انت idinku kalun baa Allah waqtigaas xaq ay gaara ninkan walba gaaray hadana waxaan isku cabinetka wasiirada halkan waxa ka baxay imika inta nool waa badii iskuulka Cabdullaahi Dirool baa garanaysa waa kuwa ugu bilaabay Cabdullaahi Faarax anka macdad jooga wasiirka halkan uu ka baxay klaaska kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet